بسم الله مقعي وانا مع إبراهيم إسماعيل وحادقنا دقمة بلعت هي ما كنت دقيستياش البرنامج كهلو ها زايد هي محاك كدقيستا كيس كدقيستا محاس المحوى كاغا سو baxay waxaa ka faa'iiday waxyaabo fara badan waxaa ka dhageystaa radio balcad maxaa kamid ah waxaa ka faa'iiday xalinta khilaafaadka isbedelka cimilada iyo waxyaabo fara badan maxaa isleedahay lagu soo kordhiyay waxaa leeyahay lagu soo kordhiyo waxaa jira dagaalo sokeeye iyo waxyaabo fara badan ka waxaa leeyahay anagu soo dar أولا إله ما أسكاله سبحانه وتعالى ما أنت وحى شرفين إيه أنا وآه قدومي كحجين كأريمها بلشة ذكمة بلعت عن كسوق قال لي برنامج كان لي هذا هيلو أو لو وصل ودي السنة وكبحجري إذا عدى راديو بلعت أو ما أنت وحد مودة بلعت إسكراف تولين كود أدلو قدير سدي برنامج كسيدا وعي قلنتا iyo khatarta ka imaan karto waxyaabaha fatahaada oo maanta aan u fadhina in loo balaariyo oo maanta idaacadii la gaarsiiyo Hirshabeelle maadaama baahi weyn ay aqabtirtay wacyi gelinta iyo mataqaana iyo isku xirka bulshada waan ugu mahadcelinaynaa agaasimaha radio Balcad Cabdixakiin Xuseen Islaaw oo barnaamijkaas aad u daadihinayay 2 sano baahi weyn ka jirtay in mataqaana bulshada isku xirkeeda waxaad moodaa in reer Balcad ka degmo ahaan ka tuulo ahaan inay gaartay wacyi gelintaas waan ugu mahadcelinaynaa maanta waxaana la joogaa agaasimihii radio Hirshabeelle idaacadda Hirshabeelle TV Hirshabeelle waa ugu mahadcelinaynaa si sharafta leh quruxda badan leh oo maanta aan soo qayb galnay waxaan codsaneynaa in la balaariyo oo aan la gaarsiiyo deegaamada ay sheekay ka kooban tahay Hirshabeelle in barnaamijkan hilow oo wada gaaro waayo barnaamijkaas kama maamul ahaan ka bulsho ahaan wax badan aan ka fahanay oo isku xirka bulshada waayo waxa ka baxo dib u heshiisiinta kale waxaa ka baxo sida wacyi gelinta ay sheegay khatarta iyo mataqaana fatahaada sababta uu noqon karo marka insha Allah ta'ala waan ku mahadsantiin wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ما شاء الله مقعي وبشار محمود نور قدوميها دليرada degmada Balcad barnaamij kan dood wadaagiisii ugu horeeyay waan ka qayb qaatay si fiican baan mataqaana tusaalooyin badan ugu qaatay maalintii aan barnaamijkan ka qayb qaadanayay up to now waxa u dhaxay farqi weyn oo bulshadii maanta waxay ka gaartay heer aad u wanaagsan oo wacyi gelin badan ay ka heshay haday tahay xagga cimilada haday tahay dib u heshiisiinta haday tahay maaragtay fahamka mataqaana la socodka idaacadda wax badan ayaa noogu soo siyaaday marka waxaan aaminsanahay meesha shalay aan warka laga soo bilaabay iyo heerka soo maray iyo maanta aad iyo aad wax ugu kala weyn bay joogtaa waxaana rajaynaynaa meesha hadda bulshada ay maanta u joogto meel ka badan inuu gaari doono noola gaarsiiyana waan codsigaasna waan ku darsanaynaa bulshadu waxay in badan mataqaanaa xooga saartay dhageysiga waa dhageysataa wixii la dhageysana ku dhaqankoodu way yimaadaan marka anigu ugu mahadcelinayo agaasima Alos oo barnaamijkan markii hore isagana soo gaarsiiyay aan tababar ku qaadanay dood wadaag ka qaadanay tusaalooyin badan nagala siiyay ula noqonay bulshadeeni ay bulshadii ka faa'iiday inay dhageysato iyo agaasima Cabdixakiin radio Balcad isagana oo in badan waqti ku bixiyay inaysan idaacadaasu maalina ay saareen bulshada si toos dhagahooda ugu dhacdo ay dadku ku tala galaan doo beer joogo doo xoolo ilaashanayo doo gaari wado oo u shidan yahay wixiisa oo mar walba mataqaana xaaladiisi ay online tahay raadiyaha aad ugu mahadcelinayna marka waxa kale oo leenahay oo codsi oo ku dhax darsanayna waxay tahay bulshada horta qaybeeda waa balaaran yihiin waxa jirto xagga cimilada kale fatahaad kaligeed ma aha waxa jirto cimiladu
ibn aadanka waxyaabo fariisi ku samaynayo iyo waxa iska falaag oo xaq rabbaani iska socdo sida fatahaada biyo iska imaanayo kala abaaraha kale waxa cimilada dhibay kamid yihiin in lagu soo daro qorshaha sidii bulshada ugu sii gaashaamo lahayd oo kale inay idaacada loo soo marsiyo dhinaca kale xagga ganacsatada waxay keenaan baco waxay keenaan alaabo plastic ah deegaanka iyada naftikeeda dhibaato u keenayso saasoo kale maadaama aad mataqaanaa dadka ay idaacada ku taxan yihiin in noogula soo kordhiyo waa jeclaan waxyaabaha plasticada ay ganacsada keenayso haddii laga wareegi karo in dhinac kale u wareegaan si ay bulshadii dhibaatada ay u geysanayso bacda xoolihii ka cunayaan oo maaragtay xoolihii caloosha ka qabanayso dhibaato badan ku hayso daaqi uusan soo baxayn meeshay bacda ku bido waxaasoo dhan maasha allah taas waa inoo codsi laakiin aad iyo aad waxaan ugu maacinaynaa raadiyo balcad iyo barnaamijkan faa'iidada aan ka gaarnay wax la soo koobi kara ma ahan meesha imaal ka sarreysa in noola gaarsiiyaan aad u rajaynaynaa insha allah ilaa baa maanta iskale anigoo ah xasan mahdi macluub mbooti ahne isku dubaha wasaaradda isbeddelka cimilada waxaan ka mahad celinayaa alxamdulillah warbixinta ka baxdo raadiyo balcad waxyaalo badan aan ka faa'iidnay ka wasaarad ahaan haddaan nahay anigoo ah wakiilka degmada balcad u jooga wasaaradda waxaan ka faa'iidnay warbixinada ka baxo iyo wacyigelinta dadka inay aad u anfacday bishii 2 mar aan dhageysaynay haddana waxaa jecelnahay hadduu ilaahay karaala noqdo ka wasaarad ahaan anuu u joogo degmada balcad ee mas-uuliyiinta ka mid ee degmada balcad isku dubayaalka waxaan jeclaan lahaa inay sii badiyaan ee sii saa'idiyaan ilaan isqaqabsi badan waxaa jira dagaal beeleedyo fatahaado badan isbedelo badan maadaama iyagana isku dayeen inay sameeyaan waxyaalahaas oo ka baxa adeega baab ee u soo gudbisay raadiyo balcad waxaan rabnaa inay sii badiyaan hadduu ilaahay karaala noqdo ka wasaarad ahaanne waan taageeraynaa waana aadaan u taawacsannahay hadduu ilaahay karaala noqdo inay adeegyadaas sameeyaan maadaama adiga aad ka mid tahay mas-uuliyiintii wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada barnaamijkan sidaad sheegtay 2 jeer aad ka dhegaysataan ka shakhsi ahaan shacabka reer balcadna ay kula wadaagaan maxaa ka mid waxyaabaha la taaban karo aad isleedahay barnaamijkaas waa laga faa'iiday dadkan oo dhan waxaa laga faa'iiday horta dadka ma ilbaxsana ninna waa ilbaxsan ninna ma ilbaxsana waxaa laga faa'iiday dagaalada sukeeye fatahaadahoo soo naqnaqdo xaalifinta dhirta ilaahay hadduu ku roon yahay waxyaalo badan oo isqaqabsi badanaa ka jiro waddankan waa ogtahin dagaalo sukeeyaa ka jiro xalinta khilaafaadka oo kale ka dhagaysanaa waxyaalahaas aaday u anficeen bulshada aadana kaga mahad celihiina ka wasaarad ahaan maxaad isleedahay marka barnaamijkan waa ka maqan yihiin in lagu soo daro fikirkaaga wallaahi waxyaalo badanaa ka maqan hadda wixii badan sida badan waa dhagaysanay inta kalena inay noo dhammaystiraan sida bacahoo kale ilaahay hadduu ku roon waxyaalo badan oo xoolaha amba deegaanka wax u dhimaayo amba wasaqyada iska bataan meelna nadaafadee leedaha meelna nadaafad ma laha waxaan rabnaa waxyaalahaas in noo zaa'idiyaan hadduu ilaahay karaala noqdo ee barnaamij ku soo daraan sida bulshada loo sii baro oo waxyaalaha ay u sii socdaan hadduu ilaahay karaala noqdo hadda way faa'iideen ka wasaarad ahaan maxaa shacabka u qabataan reer balcad wallaahi shacabka waxaan rabaa naftirkooda inay dhageystaan waxina ay badiyaan hadduu ilaahay karaala noqdo dhageysiga iyo shaqooyinka la qabahayo amba wacyigelinta inay qofta ku taxnaato ilaan waxyaalo badan ay laga faa'iidaa meesha wasaaradda deegaankana aaday u taageersan tahay barnaamijkan wacyigelinta ah waxaan rabnaa inay sii saa'idiyaan anakana ilaahay hadduu ku raayo 5 mar camal waa qabanay haddana inaan noo dhammaystiraan aan rabnaa wixii dhiman السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجيء ودكتور حاوة وحنكون على دقمة بلعت وأنا كله وهاي برنامجك برنامج كان مدرسة هلو يتبعها عن هذه بلعت بش الرجال في عن وقت جسته كيف برنامج runtii ani markaan degmada joogo idaacada kala socda bad markaa degmada ka maqanaayna facebooka ka dhageystaa ay hadda dhageystay barnaamijyada ka baxa hello radio balcad uu sii daayo maxaa ka mid ah waxyaabaha aad isleedahay aad ay ku soo jiitay oo degaha bulshada u weyn runtii hadda waxa aad ii soo jiitay ee aan la dhacay arrimaha oo tusaale dadka qabiilada isku dilaayo dadka beeraha iyo dhulalka iyo waxyaalahaas ka dhaxeeyo in barnaamijkii wacyigelin ku saabsan loo marinayo in waxaas ee totally baqalad yihiin ay maxaa ugu dambeyntii isleedahay oo aad fikir ku soo kordhinayso dadka barnaamijkan oo ka maqan yahay soo barnaamij
كمية هالديستاش وتحمل برنامج كيلو ريدي بلعب كبح waa mahadsan tahay barnaamijka runtii hadda waa uu kooban yahay haddii climate change arrimihii oo isbedelka cimilada arrimihii fatahaadda arrimihii dhulalka la isku haysto lagu soo koobay runtii barnaamijku waa u dhan yahay isleeyahay degmada balcadna aadaa looga baahnaa wayna ku mahadsan yihiin dadka barnaamijkan ku hoolan runtii howl adag ay hayaan teeda kale barnaamijka waxaa jeclaan lahaa in lagu soo kordhiyo daryeelka caruurta in qoysaska lagala hadlo tusaale waxaa jira dad hayaan caruur ay iyaga dhalin ama ninkii anaakal kusoo furay ama hooyadii aabihii dhinteen in daryeelka caruurta awaarneysyo ku saabsan in loo mariyo bulshada barnaamijka sasaa jeclaa lahaa intaasaana ka dhimana isleeyahay waana mahadsantihiin magacayga maxamed Abuukar Gaawne oo ku nool degmada Balcad ما كمية هاي دقيستيش برنامج كيلو كبح راديو بلعب ها waa kamid ahay aan ka dhageystaa waxyaabo badan oo kamid yihiin fatahaadaha iyo bacda wasaqyaasha oo xoolaha cunaan iyo waxyaabo badan kamid ah marka waxa islaahay in lagu soo daro maandooriyaha xashiishka iyo daraamada dolka dadka isticmaalaan iyadana islaahay in lagu sii daro ku bilaabo magacayga Cali Cumar Maxamed nabadwaan Cali Barre waxaan ahay qof wax badan soo joogay degmada Balcad ku dhashay ilaa hadda waqtigiisa inta badan ku qaatay degmada Balcad waxaan noloshayna ku soo korortay sanadahan dambe barnaamijkan Hilow oo ah barnaamij ay wax badan ka faa'iideysteen bulshada ku nool degmada Balcad xaafadaheeda kala duwan beelaha tuulooyinka kaasoo ay wax badan kaga faa'iideen colaadaha wax badan ay kaga faa'iideen barnaamijka wasaqeynta hawada bacahii iyo mataqaana waxyaabihii xoolaha dhibaayay ama deegaanka dhibaayay waxyaabihii kaleento oo hadda masiibooyinka oo degmada Balcad ay aad u soo noqdeen fatahaadihii webiga Shabeelle oo intuu Balcad ka baxay gobolka Shabeellada hoose gudaha u galay oo labada wado midda Balcad iyo gobolada dhexe isku xirto midda Afgooye iyo gobolada koonfur galbeed isku xirto ay wada xiran yihiin ay xireen biyihii webiga oo barnaamijkaasi wax weyn kaga qayb qaatay waxaa kale oo barnaamijkaas degmada Balcad ay aad iyo aad u faa'iideysatay ama waxyaabihii uu taray oo kamid ah agaasime Alos waxaa kamid ah adiga ma kamid tahay dhageystayaasha barnaamijka Hilow aniga waa kamid ahay wali dadka waxaan ahayd bulshada ku baraarujiyay inay barnaamijkaas ka faa'iideystaan waxaan kale toon ahaan dadkiisa tababarka loo soo siiyay ay xalinta khilaafaadka degmada ama xataa guddigii xalinta khilaafaadka ee degmada dadka xubnihii koobnaa ee ku jira ayaan kamid ahaa okay haddaad kamid tahay dhageystayaasha barnaamijka Hilow maxaa kamid ah waxyaabihii aad ka dhageysatay soo jiitay waxaa kamid ah oo soo jiitay sheekooyinka gaarka ah oo midda guud ee bulshada qusayso iyo midda gaarka ah oo qoyska qusayso intaba wax badan ka faa'iidnay waxaan kaloo ka faa'iidnay barnaamijkan iska hor imaadka oo beeraleyda iyo xoololeyda isku dhacaas oo degmada Balcad ay si gaar ah u qabto kaasoo hadda maanta aan joogo saacadan ama daqiiqadahan aan rabo inaan ku baxno qof la dilay oo beeraley ah ay dileen xoololey barnaamijkan radio Balcad waxaan leenahay waa ku mahadsan yahay sida runta uu sheego oo waxba qarinin koo sida uu ka qayb qaato daminta iyo colaadaha taagan kaasoo bulshada Balcad ay ku xiran yihiin degmadan waa ma santaa barnaamijka halkee kala socota ma raadiyo ka dhageysataa mise aaladda Facebook aad kala socotaa barnaamijka live ku yahay Facebook badanaa ma ka dhageysta waxaan si toos ugu dhageystaa radio Balcad oo si toos aan kaga dhageysto حتى waxaa kaloo aad ku maasantihiin in xilligii
xilligayga oo galabtii 12 saac oo BBC laga soo deey jiray in barnaamijkii lagu bedelay nala soo deeyo taasna aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa ma jiraan marka waxyaaba ka isleedahay maadaama barnaamijka 2 sano aad degeysanaysay waxyaaba aad isleedahay barnaamijkan oo ka maqan yahay lagu soo kordhiyo barnaamijkan wax ka maqan ma jiro oo gaar hadda aniga aan sheegayo laakiin waxa Soomaaliya waxay tiraahdaa hilmaan hadalku ma jiro barnaamijkan waa soo wada koobiyaa wixii ka maqan wax weyn ma ahan oo hadii oo colaadihii laga hadlay hadii fatahaadii laga hadlay hadii dagaankii laga hadlay hadii bulshada dhaxdeeda waxyaabihii shakhsi ahaan ama qoys ahaan u taabahay laga wada hadlay wax dhiman oo gaar ma jiraan laakiin waxa dhiman in barnaamijka wixii dhiman ayaga soo bixi doono hadii aad si wadaan oo aan la joojinin baahida bulshada ay u qabto anagana markaas kadib bacdama aan nahay dhageystayaal inaan bulshada wixii fiican u sii gudbino ama wixii aan bulshada ka soo helno bacdama bulshada aan hormuudkoodi nahay inaan si toos ah idinku matraadiyo bacd ula soo xiriirno oo aan si toos ah oo live aan bulshada saan aan soo horjoogsano waana ku mahadsantihiin idin leenahay anigoo Nuur Xuseen Shoote degan degmada Balcad barnaamijka maanta u fadhino oo u soo galnay meeshan horta waxa ka mahad celihiina mahad Ilaahay iska leh Alhamdulillah shukri barnaamijkan waa barnaamijka maqla jiray aan baraadiyaha ka dhageystaan bay ka fiirshaadii leeyahay qaybaha Facebook wax badan oo hadii faa'iido ayuu leeyahay faa'iidaha soo isku dagaalanka qoyska dagaalanka sokeeyo fadahaadka iyo faraha badan oo dhibaatada waxa Ilaahay mahad iska leh war hore loo dhameeyo sideeda war ma ogtahay inaad saarnaa wax ka imaanaya ma jiro waxa barnaamijka wuxuu mudan yahay amba qiimihiisa yahay ama sharaftiisa yahay waa dareemi karnaa bulshada sidii ay maanta hadii la yiraahdo junti badan iyo wacdi badan iyo dhaqa wax badan ugu bixisheen walaalaheen Ilaahay ajir xasanaad badan Allah ka siiyo waa ku mahadsan yihiin raadiyo Balcad in badan ka dhageysanay Ilaahay mahad iska leh Facebook waa ka aragnaa wax walba waa ka baxaynaa waxaan rabnaa oo dadaalkii oo hadda la hayay in ka badan lama jubaar in lagu daro waxaan maanta aan cadeeynaa amba aan ka hadlaynaa muddadii 2 sano ay soo socotay raadiyo Balcad inuu soo tabinayay barnaamijka Hilow oo daadihiyo ka ahaa gaalos ahna IBN-ta Hirshabeelle anagana aan goobjoog ka nahay anigoo ah ugaas Maxamed Wali ugaas Xuseen kana tirsan IBN-ta Hirshabeelle qaasatan degmada Balcad iyo Dictoresa Sumayo Ibrahim waxaan qiraynaa oo cadeeynaa inaan ka faa'iidnay waxyaabo badan ay ka mid yihiin dhanka isbedelka cimilada oo degmada Balcad la xul iyo laga jari jiray iyo geedaha roobkana uu ku yaraa maantana waxaan aad iyo aad aan ugu hambalyeeynaa in dhirtii jaritaankeedii ay ummadda iyo wacyigelinta ay anfacday ilaa tuulooyinka ilaa 35 kiiloomitir oo idaacadda ay baahinaysay oo warkeedana uu gaarayay waxaan kaloo ka faa'iidnay amba ay ka faa'iideen shacabka degmada Balcad barnaamijka dib u heshiisiinta iyo ka hortagga colaadaha iyo dhibaatooyinka degmada Balcad ka dhaco qaasatan beeraleyda iyo xoolaaleyda ayagana si weyn oo aad iyo aad ay wax u fahmeen una garteen ayagoo dhibaatooyinka Balcad ka yimaadeen xoolaaley iyo beeraley ay ku ka tahay teeda kale waxa soo raacdo dhibaatooyinka ka yimaado qoyska ama familka xataa guriga isla joogo sida ninkii iyo naagtiisa oo iyagana xalinteeda iyo khilaafaadkeeda anagoo IBM-ta ka tirsan oo tababarkii iyo dadaalkii ay nagu bixisay hay'adda Bargof waxaan anagana aan ku sii celinay degmada Balcad iyo nawaaxigeeda tuulooyinka 81 tuulo ay ka kooban tahay waxay dadka ka faa'iideen maanta ay dareemi karaan meelaha ay dhashay IBN-ta degmada Balcad ama Hirshabeelle taasoo ah dadkii iyo beeraleydii iyo xoolaaleydii isqabqabsigoodii inuu yaraaday isku lixii familka qoyskii degmada ka imaanaya ayadana ay si maanta oo nabad ah oo walaalnimo ah ay isku fahmayaan ayadoo ay saacideen tababaradii iyo dadaalkii ay hay'adda Bargof ay ku bixisay IBN-ta Hirshabeelle qaasatan degmada Balcad aadaan ugu hambalyeeynaa tababarkaas anagoo weli aan ka dhalgin macaanteeda aan jecelnahay in dib oo lagu sii balaariyo loo sii qabto maadaama tuulooyinkeena qaar ka mid ah hadda ay ka xoroobeen dhibaatooyinkii iyo colaadihii ka jiray
khaasatan qoladii oo qawaariijta hadda ay ka xorowday qaarkood aan rabna in ayagana la gaarsiiyo. waxaan kaloo u mahad celinaynaa agaasimaha raadiyo balcad iyo garbihiisa wariyaasha oo degmada balcad miidiyaha oo si weyn oo aad iyo aad juhdi u geliyeen in barnaamijka hilow oo saacado walba iyo xilli walba oo aad u baahan tahay amba oo ay u sameeyeen jadwal looga dhageysan karo barnaamijyada ka baxo deegaanka idaacadda ay gaarayso. aad iyo aad aan ugu hambalyahaynaa. waxaan kaloo aad iyo aad aan u saacideynaa amba aan u fahmay inaan noolagu soo celiyo aan jecelnahay kelimatan oo ah cimilada dhanka cimilada oo aad iyo aad wadanka oo hadda nagu cusub tahay dhibaatooyinkeeda. annagana shabeellaha dhexe haddaan nahay waxaa aad iyo aad uga cabaynaa dhanka fatahaadda oo webiyada roob yarida hadda oo sanadka hadda aan ku jirno 2024 oo roobka aad iyo aad ugu yaryahay wadanka. marka dhibaatooyinkaas oo ka hortaga cimilada intii yaroo hadda aan soo qaadanay iyo tababarkeedii degmadu wuu ku yaryahay khaasatan IBM-ta Bargoof iyo intii ka qayb qaadatay. waxaan leenahay mar koowaad iyo mar labaad anagoo idinka mahad celinayno in haddana la sii ballaariyo oo isbeddelka cimilada aad looga tabanayo in ayadana lagu soo celiyo. waxaan anaga hadda si fiican u baranay oo aad aan u taakuleehaynaa aan horan aan u ahayn dhaqan midda dib u heshiisiinta tii oo waxay noo saaciday habka oo wax la iskugu gudbin karo oo casriga guruubiya WhatsApp aan samaysanay nidaamyadaasayna bartay IBM-ta ayadana wax weyn bay noo tartay. anagoo markeen horeba aan ahayn gudub dib u heshiisiin iyo dhaqan taasoo aad aan ugu mahad celinaynaa. waxaan kaloo jecelnahay oo aan codsigeen oo gabagabada u yahay degmada balcad in IBM-ta aysan ka maqnaanin ay dadaalkeedii ay ku wado ay ku soo celiso horan oo gudoomiyaha arrimaha bulshada uga codsada iyo maamulkaba. taasaan taageeraynaa. isbeddelka cimilada aad oo noo saameeya inaad garab nagu siisaan iyo wacyigelinteeda saasaan iga codsanaa. wabillahi tawfiiq. magacayga waa Cabaas Sheekh Ibraahim degana degmada balcad. دكتور وسودو كمية الجيستاش كنت حن برنامج كيلو. ومحسن تهاي آدي آد وقتحنا هاي لوضع بواكل السعودة إذا عدنا وان كده جيستا فيسبوك وان كل السعودة. أي محاكم الحياة سلالة وكفائدي برنامج ما كده جيستا. waxaan ka mid ah dadka mararka qaar dad wadaaga ka qayb gala oo arrimaha cadaaladda si fiican uga hadla. runtii waxaan isleeyahay bulshada kaalin aad iyo aad muhiimsan ay idaacadda maxaa la dhahay u haysaa oo waxyaabo badan oo bulshada asal ka qarsoonaa ayaa u iftiimisay. maadaama macallin aan ahay waxaan codsanayaa in lagu soo daro barnaamijka aqoonta ama maxaa la dhahay waxbarasho ka hadlayo in isbuuci mar oo kale la soo geliyo haddii suuragal tahay ama bishiiba mar. waxaan kala jeedaa tusaale ahaan degmada balcad iskuulaad fara badan ku yaalaan macallimiin badan way joogaan dad khubaro ahoo jaamacada macallimiin ka ah jiraan. marka bishiiba mar in lagu soo daro barnaamijka waxbarashada barnaamij la dhahayo oo aad u xiiso badan oo waxay barashada faa'iidooyinka ay leedahay oo aan ognahay in bishiiba mar barnaamijkaas la qabto. waxaan isleeyahay barnaamijkaas kaliya ka maqan inta kale way u dhameystiran yihiin. ablagu xaliyaal hayne dadyo isu soo hilo